wiilkayga lambarkiisa waa garaacay mar labaad garaacay waa waalidiin weli la tiraanyoonaya xasuustii 14 Oktoobar. hooyo Xabiibo Cusmaan waxaa goob fadhi u ah bartii 4 sano ka hor ay ku weysay wiilkeedii Cimraan Ilyaas oo 15 jir ahaa waana halkii ay ku lahayd maqaaxi ay ku iibin jirtay shaax oo haatan danta iyo daruurtu ay ku soo koobtay inay isla halkaasi la fariisato darmuush lagu keediyey biyo qabow oo shilimaad ay reerkeeda kaga raadinayso. Cimraan oo garab u ahaa hooyadiis Xabiibaha ayaa muuqiisa la waayay xilli uu ka yimid iskuulkii uu wax ka baranayay kuna sugnaa meherada hooyadiis. dhacdadii 14kii saameyntii ay nagu yeelatay saameyn weyn ay nagu yeelatay waayo haddaan wax haysan halkaan ma ku soo laaba lahayn ilmahaygan waayo kii ugu dambeeyay waa oo yaraankayga ay kan meesha gale asaga arday waa imaad leh hooy bariisiyo ay dhahay waa imaaday anigana bariiskaan si waa buxooya suu dhahay walaashiisa siliga dan inuu aado rabay anigii baawurku waa ismooddi asaga gadaashay markaan hotel Amiir gaarayn waa dhacaybo qaraxiya dhacay asaga meeyo gale anigii dharkii dhana iga buubi hor yaa sii ordi baan ilaahay amaan dhagaxay uu soo dimi dhagaxii wixii korkii iga fiifiiq ma iska sii ordi waxa aan arki male laftiisa ma arkin laami waa iskimid anoo calooshay isku xuntaan laami iska joogi maxaan sameynaa marka ilaahay ma wacroha inta daa'imad ma buu soo laabanay jajabkii wixii oo dhan markii la qaaday oo dhulka dhan la baneeyay imid aan waaba soo laaway ilmiya afka ka bixi waayay lama joogta lamadii Cimraan haawe marka waxaan dhahay ninkaas waa tagi iska dhaafa waa mid ka mid ah xasuusihii ka dhashay qaraxii 14 Oktoobar kaasi oo galabtay nolosha boqolaal Soomaali ah. waxay ahayd xilli galab ah laguna jiray salaada casir kolkii gaari nooca xamuulka qaada oo laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa oo ku qarxay isgoyska Zoobe ee magaalada Muqdisho xilli goobtu ay aad u camrnayd 14 Oktoobar 2017. waqtigu waxa uu ahaa kala wareeg dad ayaa ka rawaxayay goobahooda ganacsi qaar ayaa ka yimid iskuulaadkooda iyo jaamacadahooda waxbarasho kuwa ayaa ku jiray ganacsigooda caadiga dhammaan intaasi oo idil waxa ay ku kulansanaayeen isgoyska Zoobe oo marin muhiim ah u ah dadka iyo gaadiidka isaga kala goosha Muqdisho. waxaa iswaayay waalid iyo caruurtiisa caruur iyo waalidkooda qaar ayaa u bilaabatay nolosha agoonnimo iyo rajaynimo ma jirin cid kala saari kartay dadka qaraxu haleelay kuwa ayaa jirkooda gubtay kuwa ayaa gebi ahaanba xubnahooda jirkooda kala tegay kuwa ayaa googo'ay kuwa ayaa haatan xaalkoodu waxa uu yahay mid aan geeri waxba dhaamin. waxa ugu badan ee goobta laga qaaday ayaa ahaa jawaano marooyin iyo baco lagu riday haraadiga hilbaha dadkii uu halakeeyay qaraxaasi. Cabdulqaadir Maxamuud Cismaan waxa uu meherad ku lahaa isgoyska 14 Oktoobar Zoobe isaga oo salaada casir ku jira ayaa qaraxu uu dhacay wiil uu dhalay oo da'aadiisa uu inoogu sheegay da'aada 30 sano oo uu kaga tegay meherada ayuu qaraxu la tegay raqdiisana dib dambe uma uusan arag waxaana qaraxaasi uu ku reebay xasuus aan ka harin oo noloshiisii saameysay. aadan u leeyahay hadwa qalbigaan ka baxday markuu wiil baa iga dhintay meeshaan oo hal gabar iga tagay marka soo baa inta alaba ala lugla ma ka karo inta aad baa dhibaatay dib noogu dhacay dib weyn noogu dhacay wiil adiga oo da'daadu kale ah hal gabar oo iga tagay ana salaada casran badran galay marka salaada casran badru galay ka salaada casran qof baa hortay taagnaa ana gaashan taagnaa marka ninka alluga u dhinay aniga gaashan taagnaa hal mar la kacay qarax dhacay markii la isla kacay banaanka markii gudaha aad la isku dhaxwareeray gudaha markii gudaha la isku dhaxwareeray markii meel aan ka baxana weyn martaba ilbaab gadaalkeena meeshii ilbaabkii aan ka baxana markii dhinaca aan soo fiireen waxa la fiirin kalmale markii hore ma ordo wiilkayga lambarkiisa waa garaacay mar labaad garaacay waay aad la sheekaysato dadkii goobjooga u ahaa qaraxii Zoobe ilmada ma cishan karaan oo waxay go'anayaan asxaabtii walaaladii waalidiintii iyo ubadkii maalinnimadii sabtida ahayd xilliguna uu ahaa casir ku nafwaayay dhacdadii 14 Oktoobar oo si weyn
ay kaga argagaxeen dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo bulshada caalamka ee ka warheshay qaraxaasi. waxa uu ahaa xasuuq wadareed lagula kacay dad aan waxba galabsan. inkastoo tiro rasmi ah aan laga haynin waxyeelada qaraxaasi, haddana waxaa tirada ilaa iyo haatan laga diiwaangeliyey lagu qiyaasaa ilaa 600 oo ruux. muddo 4 sano ah ayaa laga joogaa qaraxaasi. xasuusta dadka Soomaaliyeedna weli kama uusan go'in wixii dhacay 14 Oktoobar oo lagu tilmaamo inay tahay maalin madow.